maalin maalmaha ka mid ah ninkan iyada qaba saaxiibkiisa asaga oo ku jira mid ka mid ah website-yada laga daawado filimaanta xunxun misana iska daawanaya ayuu ku dhex arkay gabadhan oo ah xaaskii saaxiibkiisa wuu aamini waayey aad buu u naxay asagoo isleh talow ma indhahaga mise waa iyada wuxuu isweydiiyey goormay bilowday shaqadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب خالقة إكو حرن جنال كينا أشرف سي جي كسو دوادا موخال عصب أو كسابسان خيانو هدبا خيانو هدي آد مخشو وحا إسلامركي بكسو دعاي مسكح دادا وانوعي خيانة دا ملعق با قف لغا خياني مخيانة أيا قف لغو ديلي مسوا خيانة خويس أنيغا أيا كسينا جواب تادا هدبا وينوعي بدنتا خيانة دا بل سميدا أن كوهايو وخيانة كدحيسا نين إيو حاسكيسا oo haddii aad maqasho la shoogi doonto waxaan idin soo khulaaseeyay dhacdooyin kooban oo ku saabsan khiyaanooyin aad u waaweyn balse intaan u sii gudagelin muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay subscribe garee channelka waa iska lacag laan waad ogtahay subscribe-ka lacag ma ahan midda kale muuqaalkana ha ka iloobin inaad like garayso mahadsanid. ninkan aad u jeedaan waxa uu ahaa nin safar badan oo shaqeeya maalin maalmaha ka mid ah sida caadadiisa ahayd safarkiisa shaqo ayuu u baxay balse soo naqashadiisa ayuu jeclaystay in uu kadis ugu dhigo xaaskiisa markii hore wuu u sheegi jiray in uu soo dhow yahay balse waxa uu go'aansaday markaan inuu lama filaan ugu dhigo imaanshihiisa si ay ugu faraxdo soo laabashada ninkeeda hase ahaatee nasiib daro guriga marka uu soo galay waxa uu la kulmay fadeexad iyo ceeb xaaskiisa oo nin kale la joogo aad buu u xanaaqay runtii. Hey, what's going on? What's up? You're fucked. What are you doing here? Cheating on me? Hey, get out of my house. Get the fuck out of my house. Go on. Fucking Jody? Yeah, I bet. She's fucking your niece now, huh? waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin muuqaal gaala ah ayuu soo qaatay gaaladana wax kasta ayaa ka suurtooda balse adduunkan hadda la joogo muslimiinta qaar iyo gaalada qaar isku mid ayay u dhaqmaan wayna badatay khiyaanada qoyska in yar mooye haddaba dhacdadan waa dhacdo argagax iyo layaab badan waana mid fadeexo ah aan marnaba la filaynin oo ku dhacday qoys muslimiin ah qaas ahaan mid ka mid ah dhulalka carabta ayay ka dhacday qoyskan waxa ay ahaayeen aroos cusub ilaa iyo 1 sano waxay ku noolaayeen nolol degan oo farxad leh balse gabadhan waxay ahayd gabar socod badan oo mararka qaar iska baxda iyadoon u sheegin ninkeeda meesha ay ku maqan tahay gabadhan waxay xiriir hoose la samaysay wiil kale kaasoo ay u fulin jirtay wax walba uu rabo waana ognahay gabdhaha noocaas ah inaysan ragga jecleen xataa asaga oo xumaan kasta samaynaya waxa uu rabaa gabar dhoorsan oo wanaagsan inta badan wiilasha dantooda haddii ay ka gaaraan gabdhaha noocan oo kale way ka dhaqaajiyaan ceebtan waa mid u gaar ah gabdhaha xataa dunida oo dhan sababtoo ah xanuunka iyada oo kaliya ayaa dareemayso tusaale ahaan uur ayaa laga yaabaa in ay qaado weliba asagana baashaal ayay ka ahayd calaa kulli xaal aan u soo naqano sheekadayna gabadhan iyadoo la qaba ayay iska sii wadatay hoosheeda wasakhda ah meesha uu raba ayuuna ugu wacan jiray weliba waxaa intaasi dheeraa si qarsoodi ah ayuu ugu duway muuqaalo xunxun waxa uuna gelin jiray websaytyada lagu soo bandhigo filimada anshaxa xun dhibaatada jirta ayaa waxay tahay gabadhan markii ay aad reerkooda waxay ku leedahay ninkii ayaan is soo dagaalnay weliba iyadoo xataa jirin wax khilaaf ah haba yaraatee waxaa dadkii ka soo haray yaab iyo amakaag haddaba sidee lagu ogaaday arrinkan la yaabka leh oo ay ku kacday gabadhan maalin maalmaha ka mid ah ninkan iyada qaba saaxiibkiisa asaga oo ku jira mid ka mid ah website-yada laga daawado filimaanta xunxun misana iska daawanaya ayuu ku dhex arkay gabadhan oo ah xaaskii saaxiibkiisa wuu aamini waayey aad buu u naxay asagoo isleh talow ma indhahaga mise waa iyada wuxuu isweydiiyey goormay bilowday shaqadan aad buu ula yaabay wuxuu is yidhi qaabkee ayaad ugu sheegi kartaa saaxiibkaaga maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiiyey waxa uuna go'aan ku gaaray inuu soo dejiyo muuqaalka kadibna memory uu ku shubo saaxiibkiisana uu u dhiibo sidii ayuu sameeyey ninkii oo iska daawanaya muuqaaladii ku jira memoryga ayaa hal mar ishiisa ku dhuftay xaaskiisa oo nin kale galma la samaynayso waa uu muraal dilaacay aad ayuu u naxay argagax ayay isku beddeshay sheekadii بحط له شويه حاجات يعني مش مظبوطه الله اعلم بس جت ازاي المهم رجعه له تاني وهو حط لي عليه شويه اغاني وجده لي
بفتح الكارت بالصدفه على اساس بالاغاني وكده، وبطلع الاغاني اللي هو نزلها لي الجديده. muuqaalkan saddexaad oo asagana ah mid khayaano ah sidiisii la mid ah gabadhan aad aragtaan ee timaha madow waxaa qiyaameeyey ninkeeda weliba meel dheer ma uusan aadinee saaxiibteeda ayuu ku khiyaameeyey iyadana kuma aysan adkeenine way soo dhowaysay wayna la sii waday shukaansigii muddo kadib markii la gaaray xilligii ay balameen ayay saaxiibteeda ugu wacday meeshii ay ku balmisay ninkan khiyaanoolaha ah oo ahaa gurigeeda sida aad ka arkaysaan muuqaalka waa laba gabdhood oo saaxiibtinimadooda mid daacadnimo ah walow inta badan ay dhacdo tan oo kale. He's trying to, so we are finally catching him in the act after her whole entire marriage. So here it goes, guys. All right, he's here. Open the door. Open the door, dude. Busted. Fucking busted. I want a divorce. I already knew this was gonna happen. Busted. Cheating on me? Who else is there? Yeah, you do know. Tell me. I want to fucking know who else is there. Doesn't matter. It doesn't matter? Why doesn't it matter? How long have you been cheating on me? How long have you been cheating on me? Doesn't matter. It matters because I'm fucking married to you and the mother of your child. And you're laughing because you're embarrassed as fuck and you look like an asshole. We already talked about it at work, aren't we? That's why I knew you were being sketchy. Yeah, okay. waxaan kaloo ku soo qaadanaynaa muuqaalkeena dhacdadan oo ka dhacday waddanka Masar oo ku dhacday qoys Carabeed oo muslimiin ah sida aan ognahay carabta waa dad aad iyo aad u maseer badan gabadhan aad aragtaan ninkeeda waxa uu nafta dhaafsiiyey nin kale sida ay wareysiga ku sheegtay lagana duubay ninkeeda oo ku hurdaya qolkiisa ayaa waxa u yimid nin kale kulay waxay ila tahay iyada in ay u wacday ninka kale waxayna la gashay qol gaar ah kadibna sheekadooda ayuu ku soo kacay ninkeeda wuxuuna si toos ah u soo galay qolkii ay ku jireen xaaskiisa iyo ninkii oo wada hadlaya dabcan iskuma xadgudbin mana sameynin wax edeb dara ah balse way wada hadlaayeen oo kaliya isla markiiba asagoon weydiinin waxa uu soo doonay ninkan waxa uu ku bilaabay garaacid ilaa ay nafta ka baxday subxaanallah. وبصيت في عينيه لقيت عينيه حمراء قوي. لا بس انت قلتي غير كده. لا والله ده الكلام اللي هو انت قلتي اللي هو دخل عادي لا وانا عارفه اللي هو جاي وانا عارفه اللي هو موجود حتى لما اتسالتي قلتي لا والله هو ما حصلش حاجه هو كان قاعد بس ما حصلش. waa laba mucaanshaqiin ama laba qof oo ku balansan in ay isguursadaan mardhow waana laba qof aad isku jecel kalsoonina ay u dheer tahay wiilkan saaxiibkiisa oo la kaftamaya ayaa waxa uu ku yiri nin yahow ma hubtaa in ay daacad ku tahay qofta aad mardhow guursan rabto asna waxa uu ku yiri haa dabcan aadna way ii jeceshahay waxa uu ku yiri ma kaa tijaabiyaa saaxiib naagaha badankooda ma la aamini karo xariifkan asaga oo ku kalsoon jaceylkiisa waxa uu ku jawaabay haa waan ogolahay ee soo tijaabi waana aaminsanaa qofteyda kaamana aqbali doonto wax xiriir ah isla markiiba waxa uu gudagalay inuu hoos ka shukaansado iyadana way ka ogolaatay oo hoos ayay ka wadatay muddo markii ay sheekadooda wateen aadna uu u soo jiitay ayay si aan ka noqosho lahayn iskugu dhiibtay wayna aamintay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu ku yiri waxaan ku hayaa hadiyad kadis ah indhaha ayuu ka xiray asagoo u balamiyay saaxiibkiisa bal ila daawo muuqaalka. This in my house. What do you mean I'm such a dick? You're a fucking slut, fucking the both of us. How? I cannot believe you're trying to fucking defend yourself right here. So... You didn't give a shit. You're a fucking slut. Oh well, dumb slut. You deserve this. Look at you, you fucking bitch. What the fuck are you thinking? So, what are you gonna say? Sorry. For what? for fucking us both. Holy shit. wanting to go on I hope once. this video goes viral so the world can see what kind of sluts exist in this